Madaxweynaha waddankaasi Faransiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ka soo muqday filim cusub oo lagu soo bandhigi doono Mahrajaanka filimaanta ee waddankaasi Faransiska kaasi oo laga jalay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray waddanka Faransiska tan iyo 1968 iyo ilaa haatan. wariyahayaga Maxamed Jacayl ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan gudaha Hargeysa inuu ku diyaariyay. Madaxweynaha dalka Faransiska Emmanuel Macron ayaa ka soo muuqanaya filim lagu soo bandhigi doono Mahrajaanka aflaanta ee Cannes ee dalka Faransiska. Macron ayaa dhalinyarnimadiisii ku soo baxay jilniinka masraxyada kaasoo xitaa ahayd meeshii uu kula kulmay xaaskiisa ayaa haddana isagoo madaxweyne ah ka soo muuqanaya filim cusub oo laga jilay isbedelka ku dhacay dalka Faransiska tan iyo sanadkii 1968 xilligaas oo u dhacay kacaankii ardayda. Filimkan ayaa lagu magacaaba la tarfarsi kaasi oo Macron uu ka soo muuqanayo 7 daqiiqo. Macron madaxweynaha dalka Faransiska ayaa filimka uga soo muuqanaya si lama filaana isagoo xataa ka nixinaya jilayaashii kale ee filimka kula jiray oo aanan markaasi ka filaynin madaxweynaha. waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Faransiisa uu jilo filim tan iyo inta taariikhda la hayo. Filimkan ayaa waxa kale oo ka soo muuqanaya dad badan oo kala duwan oo xataa uu ka mid yahay nin imaanka ah masjid ku yaala dalka Faransiiska si loo ogaado fikradiisa Faransiiska uu ka qabo. waa dhifiye naadir in hogaamiyaasha adduunka ay aflaanta jilaan. dadka kale ee la garanayo oo madaxda ah oo ilaa haatan filimaanta wax ka jilay waxa kamid ah boqorada Ingiriiska oo iyadu film la soo jishay atori caanka ee James Bond. waxa kale oo jilay Nelson Mandela oo isaguna ka soo muuqday filimkii 1992 ee Malcolm X oo ahaa hogaamiye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madowga ee dalka Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isna jilay filimkiisii sanadkii 1992 kaasoo lagu magacaabo Home Alone 2.